Akhrisku waa astaan iyo sumad ay kaga soocan yihiin aqoonyahanku bulshada inteeda kale, waana dariiq kobciya qoraalyahanada u kaca tuujinta maskaxdooda. Laascaanood waxay hoy u tahay akhriska, waxaana inta badan kusoo badanayay maalmihii u dambeeyay makaatibta wax lagu akhriyo. Tani waa mid ka mid ah maktabadaha Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana gacanta ku haya maamulka jaamacadda Nugaal. Inta badan ardayda jaamacadda Nugaali waxay mararka qaar ku qaataan waqtigooda halkan si ay uga mid noqdaan khubrayaasha caalamka. Kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Nugaal lagu dhigto ayay matashaa maktabadani. Sidoo kale waxaa qayb lixaad ka qaata ardayda dugsiyada sare oo laftigoodu yimaada xilliyada ay jaaniska u hayaan waqtiga. Intii aan ku sugnaa gudaha maktabadan, waxaan mikrofoonka muqbaahiyaha RTN u dhiibay akhristayaashii aan ku kulannay maktabadani. anigoo ah Umar Ismaaciil Digeed, kulliyadda EBS Economic and Political Science. waxaan halkan ku akhrisanaynay buugaagtii kala duwaneed ee kulliyaddeeda library-ga ka soo booqanay. waxaan ka helnaa faa'iidooyin aad u fara badan oo naga caawiya xagga maskaxda iyo xagga cilmigaba, waayo qofka ka akhris badan yahay uu ka cilmi badan yahay. waxaan dhigtaa dugsiga sare ee Gateway Secondary School. haddana waxaan ku sugnahay library-ga jaamacadda Nugaal. marka jaamacadda library-gu wax aad iyo aad faa'iidooyin fara badan buu noo leeyahay. wax badan baanu ka faa'iidnay akhriskii oo kale, xilliyadii aan jaaniska lahayn oo kale inaan ku akhrisano, iyo buugaag kala fara badan oo aanu akhriska ka faa'iidno, casharo kale dheeraad ah, iyo in aan wax ka qorano. library-gan oo aan ka helayso ardayda gobolka Sool joogta, wax aqoon badan ay ka helayaan, buugaag badan ay ka helayaan. buugaagkaas oo focal kastoo jaamacadda ay yaalaan, language-kii ha ahaadaan education-kii, caafimaadkii ha ahaato, mid walba laga helayo. waxaa ilaahay mahadiisa maanta inaad nagu soo booqataan library-ga jaamacadda Nugaal. library-gaas oo wax badan laga helayo. waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarta gobolka Sool wax ka barata. horumarka aynu gaadhnay waa alxamdulilah wax loogu mahadnaqaa, maadaama intaasoo arday oo maanta aad aragtaan oo jooga library-ga jaamacadda Nugaal intuba ay wax wada akhrinayaan, wax diyaarinayaan. waa wax aad iyo aad loogu mahad celiyo. dhigata kulliyadda clinical health officer sanadkan ku jiro sanadkii labaad semester 3. haddii aan ka hadlo qodobkan, runtii library-ga waxyaabo badan baan ka faa'iidnaa, sida casharada aan diyaarsan oo kale, iyo in buugtii badan aanu ka helno caafimaadka oo dhan, agabka oo dhammaystiran, waqtigana aanu ka faa'iidaysano. waxaan u sheegayaa dhammaan ardayda jaamacadda dhigata inay library-ga yimaadaan oo si toosa ula xidhiidhaan oo buugta ka akhristaan wax casharada si ay u helaan knowledge fara badan ay wax ka faa'iidi karaan. qofkii doonaya inuu adduunkan hadalkiisa laga qiimeeyo oo hadalkiisa uu noqdo power of the world, adduunka furihiisa iyo awoodiisa inuu wax akhriyo baa laga rabaa. qofka doonaya inuu problem mushkilaadka noloshiisa xalliyo oo ka gudbo waa inuu wax akhriyaa. waxaan kula darmayaa dhammaan ardayda gobolka Sool, gaar ahaan jaamacadda Nugaal iyo jaamacadaha kale gobolkaba, inuu wax akhrino. marka hore magacaygu waa Shaafic Saciid Axmed, waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Nugaal dhigata, khaasatan kulliyadda shariica qism fiqh wa culuum. waxaan joognaa maktabadii jaamacadda oo runtii aan wax badan ka faa'iidnay. arday badanna ay soo xaadirtay lagana faa'iiday kitaab badan oo kala nooc oo fanni walba laga helayo. marka hore waxaan ku boorin lahaa ardayda soo xaadirtay inay joogteeyaan ka faa'iidaysiga akhriska, iyadoo ognahay faa'iidada uu akhrisku leeyahay. oo carabta ayaa waxay tiraahdaa akhbirnii man anta bima taqra akhbaruka man anta. waxaad ii sheegtaa adigu waxaad akhridid, anna waxaan kuu sheegayaa qofkaa tahay. marka labaad, magacaygu waa Anwar Maxamuud Xaaji Khaliif, maamulka maktabadda jaamacadda Nugaal. marka koowaad, waxaan u mahadnaqayaa TV-ga RTN TV, Xamse oo saaxiibkii Xamse oo nagu soo booqday saaka maktabadda jaamacadda Nugaal. halkan aan joognaa waa maktabaddii jaamacadda Nugaal University. maktabaddu runtii waxaa wax ku akhristaa dhammaan ardayda gobolka wax ka barata. maktabadda oo dib loo qalabeeyey, dibna maaragtay loo casriyeeyey, oo ay jaamacaddu u casriyeysay.
waxay u furan tahay dhammaan cid kasta oo wax ka barata gobolka. haddii aan warbixin yaroo kooban ka bixiyo maktabadda jaamacadda waxa ay ku taallaa qaybtii hore ee jaamacaddu ahayd. maktabadda waxaa ka faa'iideysta ardayda jaamacadda Nugaal University qaybaheeda kala duwan, ardayda jaamacadaha kale ee gobolka ku yaala, ardayda dugsiyada sare, ardayda macaahidda kala duwan ee gobolka ku yaala, iyo sidoo kale dadka waayeelka ah ee wax akhrista, dhalinyarada ku soo baratay dalka dibadiisa iyo gudihiisaba wax ee magaalada ku sugan, iyo cid kasta oo jecel inay wax akhristo. maktabaddu waxa ay u furan tahay ardayda gobolka inay horumariso in wax akhriska kor loo qaado. aan halka ku joojiyo shaqada wariyeynimada, iminkana aan guda galo akhriska. xamse raadeeye, telefishinka caalamiga ee RTN, Laascanood.